السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي ميل بأجوتان وأدين سلامي وولاشينا دوريسجيا كسو دوادا موقال كلمان تاو أنا هدلدونو وحيالله كينا فنان كوجيغا iyo sida lagu daaweeyo su'aasha ama cawashada ugu weyn oo ka timaada gabdhaha ku xiran channelkeena ayaa maxaa keena finanka wajiga sidee loogu hortagi karaa haddaba halkan ayaa idinka soo gudbin doonaa waxyaabaha lagu daaweeyo finanka wajiga si dabiici ah haddaba waxa isweydiin mudan maxaa sababa finanka ka soo baxa wajiga qofka oo wajigiisa yahay mid dufan leh haddana aan aqoonin qaabka loola dhaqmo iyo qaabka loo nadiifiyo wajigiisa qofka oo finka ka soo baxa gacmaha la aada kadibna dilaacaya taas oo keenta meeshii in ay raad ku reebto qofka aan iska hagaajinin qaabka cunada sida cunooyinka ku badan dufanta cunooyinka shiilan iyo cunooyinka lagu badiyay basbaaska xawaashka qofka oo marka uu wajigiisa meeranayo oo xoog u riga wajiga taas oo keenta in qanjiradiisa ay soo deeyaan dufanta in ay siyaadiso qofka oo aan hurdo iyo nasiino fiican helin haddana ku darsada fikir iyo walbahaar finanka gorma ayay bakteeriya siyaada ah ay wataan haddii finku afkiisu madow ama cadaan yahay waxaad ogaataa bakteeriya culus in ay jidho maxaa daawo u ah marka uu noocaas yahay haddaba waxaad isticmaali kartaa khalka tufaaxa adigoo isticmaalaya suuf ama cudbi hadba midkaad u taqaano ka fogay gacmahaaga wajiga maxaa u fiican finka raadka ku reeba sida madowga iyo doldoloolka waxaad isticmaali kartaa ukunta meesheeda cad iyo qaado aad u yar oo lindhanaan ah qaado malab saafi ah intaa ayaa isku garaacaysa kadibna wajiga ayaad marinaysaa hal mar maalintii muddo 2 isbuuc ah adigoo aan isticmaalaynin wax saabuun ah ama shaambo aad iyo aad ay ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalkeena fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe like comment aad iyo mahadsantihiin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.